السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan joognaa magaalada Dhuusamareeb. waxaan Ustaad Firid oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Geeska Afrika ka wareysan doona xaaladihii u dambeeyay ee dagaalada gobolka Amxaarada iyo furinta cusub ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya ku furantay. waxaan wada xasuusanaa in ra'iisul wasaaraha Itoobiya si xun u maareeyay dagaaladii ka dhacay gobolka Tigreeda xilligii coronavirus-ka. Ustaadii soo dhawow bal xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka Amxaarada iyo Jimhadda Faana xagee kala marayaan Abiy Axmed. Ustaad Timcadow labadii asbuuc u dambeeyay dagaalo ba'an ayaa waxay ka dhacayay gobolka Amxaarada maaragtay ay ka socdeen waliba laba gobol dagaalku u weynaa oo ka socday gobolka loo yaqaan Goocaan iyo gobolka Wallo labadaas gobol ayay ka dhacayeen. Gobolka Wallo waa afar waaxood waaye koonfur iyo waqooyi, marka waqooyiga inta badan dagaaladu maaragtay ay ka dhacayeen. caasimada gobolka Wallo la yiraahdo Waldiya iyo magaalo la yiraahdo Gasheena iyo magaalo diimeedka Lalabela. saddexdaas magaalo dagaaladu inta badan xoogooda ay ka dhaceen. Masalan gobolkan caasimadiisa la yiraahdo Waldiya dhowr qalcadood oo waaweyn ku yaala, waana meesha laga difaaco Addis Ababa. inta badan magaalada marka kooxda Faana qabsatay Lalabelana saas oo kale. marka qaybta kale oo koonfurtana magaalo loo yaqaano Borosalaase ayaa inta badan saakay dagaalada xoogooda maaragtay ay ka dhaceen. Gondar daafaheedana dagaalo waaweyn maaragtay ayagana ka jira. waxaa moodaa marka Itoobiya gudaheeda Faano inay soo xoogeysatay. Ustaad waxaan wada xasuusanaa dagaaladii Itoobiya ka dhacay gobolka Tigreeda in ra'iisul wasaaruhu awood badan adeegsaday oo uu ka jabiyay Tigreeda. maxay kala duwan yihiin is leedahay dagaalada hadda ka socda gobolka Amxaarada iyo Jimhadda Faano? xaqiiqatan waxay kaga duwan yihiin. Abiy waxaa saaciday Eritrea markii Abiy uu gobolka Tigreega dagaalka ku qaaday gobolka Alamata ee caasimadiisu tahay Raaya. dagaalka markuu ka socday waxaa nimanka Tigreega dhawr jabiyay Eritreanka oo ka soo galay xuduudda Adigraad yimaadeen. Adigraadna waxay u dhowdahay Maqale saas maaragtay ku jabeen. maanta marka waxa isla socda Amxaaradii Faano Tigree Eritrea marka isla fadhiyo. marka Faano gadaalkooda in uga timaado dhawr jabin marka ka baqi hayaan.